انت مركان كان نمانو ومقدمات كأون نمانو وقفض الصدحات أما قضبك الصدحات براروجين تمضى وحيتها أرنتم بو قرر لسي لو قبصدي لين كان وذاتك لأن يرى اللي يرى إبراهيم عيو ما قانانين مركي يقول رسال ما يحيس مقليوي هو القوان هرانو ملاهي لكن مسألة وذاتك اللي قبصدي هي وحق الشيء هي قابك الله تعاملي يعني دوني يندل استاغ أنا وكو صلينا قضبدي هذا نصور شيء لبا الريموت با ولينكاسي كو قرال كيسا كو شيغي فيسبوك وا قرال يرو كوبن با قضبك كوبادي وحو كو شيغي شيخا كتبتيسا إن أي كجيران وحيالو شريعة خلافسن oo shirkiyaad iyo khuraafaad ka mid yihiin nafcina aan lahayn baadi iyo khuraafo inay ku jiraan kutubtiisa qaar ka mid ah ayuu tilmaamay qodobkaas waa sheekha gaala muusan dheh sheekha lafahantiisana muusan durin sheekha muusa caayin laakiin wuxuu yidhi kutubta sheekha khaladaad baa ku jira soo qodob maaha qodobka labaadna ninkani wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa wadaadku markuu dhinto qabrigiisa in la caabudo waad arki doontaan buu yidhi magac siyaaraa lagu caabudi doonaa magaca barakaysi baa lagu caabudi doonaayo lagu baryi doonaa waadna arki doontaan buu yidhi hadalkiisa marka la soo wariyay labadaas qodob buu ka kooban yahay labadaa qodob maxay istaahishay qaabkaysahay in loola dhaqmo qodobka hore cadaaladdu waxay keenaysaa ninka waxbuu sheegtay wuxuu sheegtay in la yidhahdo caddee nabigeenu wuxuu yidhi sal alla alay wasallam albayinatu cala almuddaci ruuxii wax sheegta waa in caddayn la weydiiyo kutubta sheekha shirki baad ku sheegtay soo maa khuraafaad baad ku sheegtay khalad baad ku sheegtay mukhaalafaad baad ku sheegtay gartu waxay ahayd cadaaladuna ahayd inaan lagu qayliine oo xidha iyo qabta iyo erya iyo inaan la dhihine in la yidhaahdo caddee xagay ku taallaa soo maa miiska soo saar oo laga warsugo laanna nebigeenna saa u dhaqmi jiray salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii ruuxa uu khalad galo oo khaladba uu muxuu ahay lagu arko markaaba lagulama boodi jirine rasuulku wuxuu dhihi jiray sal alla alay slam war maxaa dhacay war maxaa kuu geey war maxaa dhacay waxaad garanaysaan qadiyadii xaatib ibn abi baltaca saxaabigii jaliilka ahaa yani nebigeenna sal alla alay wasalam markuu damcay inuu maka ku duulo oo quraysh intay ballantii ka baxday duulaankii uu isu diyaarinayo ayuu xaadib iyo rag ka mida ka war helay inuu nebigu duulaan u socdo kadibna sirtii nebiga ee caskariga ahayd sirtii amniga ahayd oo inuu duulaan raba ah ayuu xaadib intuu waraaq qoray oo naag u sii dhiibay ayuu reemaka gaaladii nebiga ku duuli rabay buu waraaqda u diray oo yidhi maxamed baa idinku soo socdo duulaan baa laydinku soo yahay soo sir nebi ma ah nebiga sal alla alay wasalam waxyi baa u yimid waa loo sheegay markiiba saddex saxaabada ka midoo fardoolay abuudir orda oo meel hebel markaad maraysaan naag baad arki doontaan halkaa neef geela saaran way ordeen fardooday qaateen say u ordayeen meeshii nebigu sheegay rawda dakhaakh ayaa waxay ugu tageen islaantii oo sii socota oo neef geela saaran naabal istaag way istaagtay waraaqda keen bay ku dheheen waraaq ma ayay tiri naa wada haysaaye keen ma hayo ratigii bay ka dejiyeen alaabteedii bay furfureen way baadheen way ka waayeen waxay ku yidhaahdeen annaguna been ma sheegayno beenna nalooma sheeginoo nalaguma soo dirin laba mid ama waraaqda waad soo bixin ama maryahan kaa dhigaynaa waa ku qaawinaynaa laanna aday kugu dhex jirtaa waraaqdii waa markay aragtay indha run ah hawshuna kululaatay
ayay markii dambe waxay ka soo saartay waraaqdii timaheeda dhexdooda mise meesha guntiga meel bay ka soo saartay hooyo bay tiri idin ku dhacday dhaaf waraaqdii bay soo qaateen waraaqdii iyagoo waday nabiga u keenay sallallahu alayhi wasallam nabigu hadduu waraaqdii furay mise waraaqdu xaadib bayba ka socotaaba war bal xaadib u yeedha war xaadib war maxaa kugu dhacay war waxani muxuu yahay markiiba nabigu ma dhin sallallahu alayhi wasallam war waa khaa'in sirtii nabiga iyo sir ciidan buu bixiyay qoortaha loo caseeyo rasuulku wuxuu yiri war xaadib maxaa arriman kugu geeyay maxay tahay waxani markaasuu rasuulku ay ugu degdegin roortayga ay ugu degdegin warkayga dhageyso ujeedada intaasaan ka leeyahay qisadu waa dheer tahay Soomaaliyeed marka wax weeye ma aha ruuxa hadduu wax sheego in markaaba lagu boodo oo dagaal lagu qaado oo nabi muusan caayin cidna muusan caayine kitaab baa khalad ku yaala buu yiri war khaladka sheeg ma la dhaho soo garma khaladka caday in la yiraahdo waa sidaasi ay ahayd albayinatu ala almudda'i quraanka kariimkuna wuxuu ina baray cidii wax sheegatay in la yiraahdo qul haatu burhanakum xujadiina keena quraanku wuxuu ina baray nabbi'uni bi'ilmin in kuntum saadiqin hadaadun sheegaysaan ilmi noogu warrama daliil saara xujja keena cadeeya quraanku taasoo ina baray wayla waxa weeye in ruuxa lagu la boodo arinkaasi ma aha dariiq saxsan ma aha waana waxa hadda loo yaqaan al-irhab al-fikri balna al-irhab al-fikri yani waxa weeye in la iscabsi geliyo oo ruuxa inuu bareerihiisa iyo warkiisa wuxuu qabo sheegtaba in la cabsiyo yani muxuu ahay loo halahandado oo loo caga jugleeyo taa iyada ah ma saxsana taasi waa qodobka labaad wadaadku wuxuu sheegay oo kutubta sheekha inay mulaaxadaad ku jiraan marun baa mise waa khalad wax badan baa dib ka soo bixi doona oo kutubta sheekhu uu ka tagay anigu ma akhriin laalla inuu akhriin waa dhici kartaa inuu wax ka mid ah akhriin waa dhici kartaa laakiin anigu ma akhriin laakiin waxay suurtagal ku tahay sheekhu horta tayaarka suufiyada iyo dariiqooyinka ayuu sheekh u ahaa odayaashoodana ka mid ahaa asaguna ma qarsanayo dadkuna waa ogsooyeen saamar hadday tahay dariiqooyinka suufiyada waxyaalo fara badan oo ummadda caqiidadeeda taabanaya oo cibaadadeeda taabanaya oo qur'aanka iyo sunnadaba khilaafsan ayaa lagu haystaa wax badanna horay loo sheegay wax badanna la sheegi doono la cadayn doono oo qubuurta baryada cibaadada wixii ilaahay lahaa oo wasiilo inta tawassul inta la yiraahdo la siiyo makhluuqaadka waxyaalo fara badan oo lagu haysto dariiqooyinka suufiyada sheekhu horta wuxuu ahaa oday buu u ahaa ha u ahaadee way dhici kartaa isaga oo ka tirsan haddana inuu waxyaalaha qaarkood qabin waa wax suurtagal ah taa markii laga yimaado waxa ii suurta gashay shalay intaan diyaarinayay kelimada diyaarinayay in aan helo sheekha qasaa'idii uu ka tagay nin wuxuu ahaa muxuu ahay qasaa'ida iyo shicirka carabiga iyo nadmigiisa iyo ku fiican buu ahaa marka qaar ka mid ah ayaan helay oo yar aad u tira yar waxyaalaha marka uu sheegayo ninka la yiraahdo Ibrahim Ciyow wax ka mid ah ku jira waa wax yar dhowr beedoona arkay waa هذا واحد ينكشف مثلا قصيدة النبي كو أمانة صلى الله عليه وسلم قيبة كم ذا سيدنا يويالان وحوليه نبي يقول الله صلى الله عليه وسلم متى تكرم بإصلاح اعوجاجي ومحو خواطر تؤذي الضمائر ضعيفا كنت ذا جسد عليلي وليس سواك لي عون وناصر فأدركني وجود لي ذا المعالي بما يشفي الضمائر والسرائر وكل يا رسول الله حرزا
من الأسواء باطنها وظاهر. نينكي عربي يقانوا فهم، نين كان عربي يقولون أنا كوشر حمر. رسولك الله الله وحوليه هدي قلقلو عيقا يقول كرامي سوتو سنتيدا إيو قلبي جايك خواطر تيدا وحا كتشيرا إنا ديكا ترتو والضمير كيكا دبي وحانا هاي مد دبردران وضعيفة تشير كيكونا واتشيريه وتشير رنبان صاحبه يا إلى صاحبه إذا أن أديك أهين أو كالميني أما قعن فيدنا ما جرتو يوكو هذا يا نبي كوضا صلى الله عليه وسلم وليس سواك لي عون وناصر. إذا أنا أذيك أهين النبي محمد كالمنا إيماها هيلينا إيماها إذ كلون هيستوى مجرب وآوي الله يا سؤال جويدية ما أو شيء لها يا ناصرة يا معينة الله.